Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaal, sidii wada ogsoonahay maalmihii ugu dambeysay baraha bulshada waxaa ku soo farabadanayay dad badan oo ka cabanaya in akoonnadoodii laga jabsaday ama xogtoodii la helay ama akoonnadooda la isticmaalayo. Haddaba waxaan ognahay dhammaanteen ama inteena badan moobiladeena waxaa noogu xidhan akoonno Gmail ah oo xogteena iyo daatadeena iyo dhammaan dukumentiyadeenna iyo siraheenuba ay inoogu kaydsan yihiin. waxaan doonaynaa maanta inaan dul istaagno laba qodob oo aad iyo aad u khuseeya akoonnada Gmail-ka. Haddaba qof kasta oo leh akoon Gmail ah, laba qodob waa waajib mar walba in iska hubiyo. Labadaa qodob aan sheegi doonaa waxa weeyaan: kow, horta akoonkaaga Gmail-ka inaad iska hubiso in adiga maaha cid kale ay isticmaalayso. Macnaa cid aan adiga ahayn oo kale in akoonkaaga isticmaalayso, kow inaad iska hubiso. Iyo mar labaad oo ah inaad akoonkaaga Gmail-ka ka dhigto high security, mid security adag leh, oo xataa hadduu qof kale email-kaaga iyo password-kaaga helo una u suurtagelin inuu xataa galo, oo adiga call lagu soo diri doono, moolka lagu soo diri doono. Marka labadaa process baan doonaa maanta insha Allah inaan isla eegno, waxoogaan yar dul istaagno, bal qaabkan marana iyo halkan marana inaad la yar fiirsaan. Waad mahadsantihiin. Haddaba si aan ogaano in akoonkeena laynala isticmaalayo ama cid kale kula isticmaalayso, waxaan tegaynaa Google Chrome-ka, kadib waxaan ka dooranaa isha yar Gmail-kaaga, kadibna manage your account baad tegaysaa, kadibna waxaad sii tegaysaa security, kadibna waxaad kasii dooranaysaa your device, kadib waxaa kuu soo baxaya dhammaan device-yada kale ee lagala isticmaalayo ee lagaga jiro akoonkaaga. mid bay kugu muuqanaya. Iminka saan arkanaba waxaa noo muuqda ilaa 5 device baa noo muuqda. 5 waan iska xidhaya. waa kombiyuutarada kale oo lagaga jiro ama aan ka galay ama qof kaleba ka galay, dhammaantood waa iska xidhaysaa. Sync out baad leedahay dhammaantoodba. mid baad dul istaagaysaa, mid baad u xidhaysaa. Step-ka waan dhammaynay. Haddaba si aan lanoola isticmaalin Gmail-keena, xataa haddii password-keena iyo email-keena la helo, waa inaad akoonkaaga aad u adkaysad high security ka dhigtaa ood process-kan soo socda aad martaa step by step. waana simple, aad buu u fududeeyey.